wanaagsan daawadayaasha ku xiran barta TikTok ee Firdawso Sahal. Ku soo dhawaada mid ka mid ah sheekooyinka taxanayaasha. Maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sheekada Jilaaga Qadiir. Magaciisa oo dhammaystiran waa Khalid Usufzari. Waxa uu ku dhashay Istanbul 4 bishii Oktoobar sanadkii 1993 waa 28 sano jir. Waxa uu ka baxay jaamacadda Bilga University qaybteeda dhaqaalaha. Professionalkiisa shaqada waa jilaa iyo model. Shaashadaha aflaamta waxa uu ka soo muuqday markii ugu horeysay sanadkii 2018 waa dhawaan gal. Filimkiisii ugu horeeyay waxa uu ahaa Dirilish Ertugrul. Kadib waxa uu dardar geliyay shaqooyinkiisa. Taxanayaasha lagu xusuusan karo waxaa ka mid ah Arif oo aad looga daawaday aaladda Netflix, Saibion, Klinik Muduru, iyo taxanaha aadka dunida u haysta ee la yiraahdo Kardashian ama Walaalaha. Taxanaha Walaalaha oo ah taxane laga daawado telefishinka aadna loo xiiseeyo. Waxa uu hogaaminaya Khalid iyo saaxiibadiisa kula lamaan jiritaanka. Waxaana qandaraas ka soo bandhigista filimkaana qaatay ETV bishii February 20 sanadkii 2021. Markaasi oo baahintiisa la bilaabay. Qisada filimkan ayaa waxa ay ku socotaa sheekada walaalo nolosha isla kaashanaya iyo jacayl. Ninka qoray sheekada taxanahaana Guul Abuus iyo saaxiibadiisa qalinka ayaa waxa ay galeen qalad aysan ka soo kabsanayn kadib markii taxanaha ay qaab sheeka xariir ahaan uga saareen Qadiir. Waxa jira warar sheegaya in Qadiir taxanaha uu ku soo laaban doono, balse falanqeeyaashu waxa ay qabaan in aysan taasi marnaba suurtagal ahayn in Qadiir uu mar kale ku soo laabto taxanaha sababtoo ah taxanahan ayaa mid hore loo duubay.